بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين jaalayaal kusoo dhawaada waxaan sii gudagalaynaa cashirkeennii hore intaan cashirkeena saddexaad aanan bilaabin waxaan dib yar aan sameyneynaa dib u soo xasuusin yar ama revision yar cashirkeennii hore waxaan kusoo qaadanay wax loo yaqaano financial statements bandhig maaliyadeed waxaa loo yaqaanaa financial statements bandhig maaliyadeed waa bandhig uu sameynayo ganacsiyada ay sameeyaan si ay u kala ogaadaan faa'iido iyo khasaaro waxa ay sameeyeen financial statements magac kaleeto loo yaqaan waa maxay saa hor usoo sheegnay final accounts magac kaleeto loo yaqaan waa maxay final accounts meeqa nooc ayaa loo qeybiya financial statementska typeskiisa saddex nooc ayaa loo qeybiya kow trading account labo profit and loss account iyo saddex balance sheet saddexdaas nooc ayaa loo qeybiya okay waxaan soo qaadan wax kaleeto loo yaqaano trading period waa maxay waa muddo xisaabeed maxaa loola jeedaa muddo xisaabeed waxaa loola jeedaa muddada uu ganacsigu bilowdo oo shirkadu ay bilowdo ganacsigeeda iyo muddo ilaa inta u dhexeyso xilliga xisaab xirka sameynayso lacag tusaale anaga waxaa bilownay ganacsiga kowda bisha koowaad 2018 oo kaleetaan bilown waxaan xisaab xirkeena sameyneynaa 31 bisha 12aad 2018 ayaan xisaab xir sameyneynaa intaas u dhexeyso ayaa waxaa loo yaqaanaa trading period xilli xisaabeed ayaa loo yaqaanaa trading period magac kaleeto loo yaqaan waa maxay waxaa kaleeto loo yaqaanaa accounting period horaan usoo qaadanay waxaan waa revision waxaa sidaas oo kaleeto loo yaqaanaa saan soo sheegnay financial year ayaa loo yaqaanaa okay intaas markaan soo sheegnay waxaa sidaas oo kale aan soo qaadanay wax loo yaqaano trading account maxaa la lahaa trading account waa bandhig maaliyadeed uu sameeyo ganacsigu waana nooc ka mid a bandhigyada maaliyadeed uu sameeyo ganacsigu kaas oo lagu xisaabiyo badeecada aan iibino asiga trading account maxaa lagu xisaabiyaa nidaada ku qabo trading account waxaa lagu xisaabiyaa hal shay kaas oo ah stocks badeecada aan annaga soo gadano iyo midda aan iska sii iibino badeeca annaga suuqa tagayna badeecaan soo iibsanayna iyo marka aan sii iibino ayaa waxaa lagu xisaabiyaa trading account okay stock waa maxay marka stock waa badeeco taas oo ujeedada ugu weyn ee loo soo iibsadaa ee tahay in la sii iibiyo taas ayaa waxaa loo yaqaanaa stock okay trading account waxaa lagu xisaabiyaa ama loogu talagalay inuu noo sheego laba shay oo kuwaas oo kale ah gross profit iyo ama gross loss gross profit waa faa'iido duuduuba gross lossna waa khasaaro duuduuba waxaan ku ogaanaynaa trading account in aan faa'iido duuduuba sameynay iyo in aan khasaaro guud ahaaneed aan ku jirno ganacsiga inuu faa'iido ku jiro iyo inuu khasaaro ku jiro laakiin khasaaradu maxay tahay khasaaro nadiifa maahan waa khasaaro duuduuba wax khasaaro oo qarash ku jiro dib dambe ayaa ka ogaa doonaa tartiib haaska hordhicin markii aan annaga wax soo gadano markaan annaga suuqa tagno oo aan badeeco soo gadano badeecada aan soo gadana waxaa loo yaqaanaa purchase oo waxaan annaga soo iibsanay cost sidaas oo kaleetana waxaa la waa cost waa qarashkii aan galnay labadaasba waa dhihi kartaa cost ama qarashka galnay waa dhihi kartaa purchase waa dhihi kartaa sidaas oo kaleeto markaan annaga iska iibino badeecada oo aan sii iibino waxaa loo yaqaanaa waa sales aan sameynay saleskaas annaga wuxuu noo noqonayaa revenue dakhli ayuu noo noqonayaa dakhli ayuu noo noqonayaa haddii costigeena labadan shay isbarbardhig haddii saleskeenu ama kan isbarbardhig costiga oo badeecada aan kusoo gadnay haddii uu ka bato uu ka weynaado revenue-ga dakhliga annagana soo galo uu ka weynaado yaa weyn costiga weyn soo maa meeshaas waxaa ka dhaca waxaa loo yaqaanaa gross loss khasaaro ayaa nooga soo baxday laakiin haddii revenue oo ah dakhliga annagana soo gala uu ka weynaado costiga aan annaga galno dakhligeena ayaa weyn lacagtana soo gashaa waxay ka weyn tahay lacagta naga baxday meeshaas maxaan joognaa profit ayaan joognaa okay intaas aan uga sii gudubno marka hordhacii iyo xasuusintii chapterkeeni oo qayb cashirkeeni hore
cashirkeena caawa waxaan ku qaadan doonaa laba shay waana xisaab qalinkaaga iyo buuggaaga diyaarso qaybta koowaad waxay noqon doontaa sida loo xisaabiyo gross profit qaybta labaad waxay noqon doontaa gross loss gross profit marka xisaabinayno waxaan xisaabinaynaa laba qaab labada qaab oo xisaabinayno waxay kala noqonayaan qaab qaacid ahaan ah iyo qaab oo format ama table ahaan ah inaan u diyaarino aan tusaalaheena ku hormarno marka let us assume aan ka soo qaadno the following example tusaalahan soo socdo to illustrate si aan u sharaxno the concept fikradda ama aragtida of gross profit ee faa'iido duuduubka faa'iido guud ahaaneed the trading period xilli xisaabeedkii ended dhammaaday 31st December 2005 sodikood bishii 2005 warsame ninka la yiraahdo macnaha xilli xisaabeedkan wuxuu dhammaaday 31 bishii 2005 warsame ninka la dhaho warsame soldi wuxuu iibiyey iska iibi soldi ergaas hoostiga cale soldi wuxuu iska iibiyey goodies badeeco worth uu qiimaheedu yahay $5,000 warsame wuxuu iska iibiyey badeeco uu qiimaheedu yahay $5,000 he had bought wuxuu kusoo iibsaday these goodies badeecadan for $3,000 ayuu kusoo iibsaday ergaasna hoostiga cale sidaas oo kale bought okay these goodies badeecas wuxuu fadhiya saddex kun fadhiya there is no closing stock ma jirin wax badeeca oo u hartay oo warsamo baqaarkiisa yeelay markii sanad xisaab xirka uu sameynay sanadkii markuu dhamaanay baqaarkiisa wax alaab oo alaabta dhan uu wada iibiyey calculate therefore calculate waxaa xisaabisaa gross profit faa'iido duuduub xisaab labo and prepare sidaas oo kale waxaa diyaarisaa trading account diyaari okay inta hadda soo fahmay Soomaa intaan hadda meesha waa inaan ku cadeeyno marka waxyaabaha la siito given meel yar oo kooban aan ku qoranaynaa given meel yar oo kooban aan ku qoranaynaa waxyaabaha la siiyay meeshan waxaan ku haysanaa waxaa meeshan ku haysanaa sold oo ah sales keena trading period and trading account waxaa la isku barbardhigay laba shay sales iyo cost sidaa soo sheegay waxaan anaga iibinay iyo waxaan soo iibsanay eraygan sold haddaa aragtid waa saleskaaga sales maxaa kuwa saleskaa meequ kula mid yahay waa $5,000 okay cost he had bought wuxuu kusoo iibsaday badeecada ugu fadhiis markii horena 3,000 taasna waxaa loo yaqaanaa purchase ama cost mid aragtada oo isku mid daysa kugu soo sheeg purchasekiisana meeqa waa alaabta qiimahaas kusoo iibsaday $3,000 maxaa naloo diray marka gross profit ayaa soo raadinaa calaam su'aal hadda gifanku ay la fahamtay soo ma okay haddaad gifankii la fahamtay waxaan aadaynaa marka solution okay hadda gifanku waa la fahamtay soo ma given waxaa noo ah oo aan haysanaa saleskeena meequ qiimaha u dhigmaa waa $5,000 sidaas oo kale waxaan haysanaa purchase oo ah shaygaan qiimihi marka hore kusoo gada alaabtaan qiima marka hore kusoo gada 3,000 okay sales waxaan haysanaa 5,000 sidaas oo kale purchasekeena ama qiimaha alaabtaan kusoo iibsanay wuxuu noo dhan yahay 3,000 okay anaga gross profit inaan soo xisaabino laba qaab aan ku sameynayna qaabna waxaa loo yaqaan statement form qaabna waxaa la by format ayadoo la maraa statement formku waa qaacido anagoo mareen solution dheh okay gross profit wuxuu ku la mid yahay qaacidada caadiga warqadda kuugu taalo waa saleskaaga oo laga jaray cost ama purchase labadaas eray isku mid waa macallin purchase-kaaga alaabta waxaad kusoo iibsatay saleskaagu waa imisa waa kana ku bedelo 5,000 ayuu kuugu fadhiyaa oo laga jaray purchase-kaagu asna 3,000 labadoo haddii la kala jaro waa imisa $2,000 waxay kula mid tahay gross profit faa'iido duuduubkaaga intaas ayaa kula mid ah faa'iido duuduubka intaas qaabkan waxaa loo yaqaanaa statement form qaab oo qaacida ahaan waa
qaacidaan waxay ku gross profit waxaa lagu helaa sales oo laga jira purchase haye purchase-kaaga sales-kaaga waa imisa 5,000 ku bedelo purchase-kaaga waa imisa 3,000 ku bedelo labadooda kala jar 2,000 gross profit intaas haysta qaabka qaacidada aan u maano marka qaabka qaacidada maalmood waxaan soo qaadanaa format meeno ganacsiga horta yaa iska leh warsame nin la yiraahdo horta ko format marka maalin loo soo qaadanay 3 shay ka kooban yahay 3 shay maxay kala ahaayeen title iyo nooc debit iyo credit 3 shay ayay ka kooban yihiin intaan waxaa la isku dhahan soo dhahnay title ganacsiga magaciisa ama qofka iska leh kor ku qor waxaa raacisaa nooca diyaarinaysa material account mise profit and loss account mise balance sheet kulli meeshaas ay wada galayaan iyo taariikhda diyaarinaysa intaas waxaa la isku dhahaa title ayaa la isku dhahaa intaas waxaa la isku dhahaa title ayaa la isku dhahaa title markaas aad sameeyso hoosta ka xariiqo sidaas samee dhag markaas sameeysid laba dhinac ku soo dhinac dhanka bidixda iyo dhanka midigta dhinaca bidixda waxaa loo yaqaanaa debit ayaa la ama DR usoo gaabs debitkan waxaa lagu qoraa qarashka aan anaga galnay tusaale bakaaraan tagna alaabaan soo iibsan anaga lacag bixin mo xamaaliya dhiibna anaga lacag bixin mo wixii aan lacag anaga galno dhan inta ayaa lagu qoraa debitka ayaa lagu wixii lacag anaga naga baxay dhinacana lagu qoraa okay dhinacana waxaa loo yaqaanaa credit ama CR ayaa loo soo gaabay asigana waxaa lagu qoraa dhinacaana dakhliga anagana soo galay wixiiba anaga lacag ahaan noo soo galay ayaa lagu qoraa okay hadeertaan keeskeena marka ganacsigeena umaan hadaa warsame haday mar asaa wax soo gatay marna asaa wax sii iibiyey lacagtii uu asig wax ku soo gatay inta ayaa ku qoraysaa tii uu asig wax ku iibiyena inta ayaa ku qoraysaa dhinacan marka waxaa ku qoree purchase ninkaan muxuu soo gatay warsame alaabuu soo gatay meeshaan qiimaha doolarka ku qoro intana qiimaha doolarka ku qoro kor waya okay warsame meeqo lacagtuu soo gatay qiimaheeda meeqo fadhisaa 3,000 okay hay miduu iska sii iibiyo asiga lacagta ka soo gashay saleskiis intana sales ay u qoree saleskiisu meeqo asigana 5,000 okay marka meesha joogto 3,000 iyo 5,000 kala goynay 5,000 oo laga gooyo 3,000 meeqo waa 2,000 waxaad ku dheel waxa fiirinay 2,000 labada dhinacan ma weyn mise dhinacan weyn ayaa fiirinay dhinacan ma weyn mise dhinacan weyn fiirinay hadba dhinacii yar ayaa ku buuxinay hadda 3,000 iyo 5,000 yaa weyn 5,000 weyn yaa yar 3,000 2,000 inta ku qore 2,000 inta ku qore meeshaan ku qore si aad isugu balance gareyso sheekada okay 2,000 maxaa u bixinay marka gross profit sida daa soo gaat gross profit ayaa inta ku qoranay laakiin gross profit marka tiraahdo waxaa raacinaysaa CD ergaas ayaa raacinaysaa C/D waxaa loo yaqaanaa carried down ayaa loo yaqaanaa carried down ayaa loo yaqaanaa hooseeda ku qoraya carried down waa maxay la soo saaray ayaa loola jeedaa faa'iido duuduubka la soo saaray 2,000 waa carried down CD carried down ayaa loo soo gaabay okay isku dar marka labadan isku dar qaabka u diyaarina muhiim waa naqshad iska raac okay la isku dar labadan waa 5,000 kana waa maxay kana soo deji asigana hortiisa meel ku aadan u jeeda raac meel ku aadan ku soo deji 5,000 hoostaas ka marsi hadda labada dhinac soo isku mid ma waa isku mid waa balance haddana lacagtan gross profit ka meeshii laga keenayo cilna tan sideeda u soo qaado hoostan ku qor waxaa leedahay gross profit meeshii haday CD ku qorayso waxaa ku qori doontaa BD oo brought down dhinaca loo soo raro meeqa waaye 2,000 kadib laba mar hoosta ka
kana lamar hoosta ka xariiq sidaas ayaa ku diyaarisay kow marka horeeto maxaa diyaarsanaysaa title-ku wuxuu ka kooban yahay ganacsiga magaciisa nooca xisaab xirka samaynaysid iyo taariikhda hoosta ka xariiqo labada dhinacna debit ku qoro dhinacna credit ku qoro waa process la marayo okay dhinaca debitka waxaa lagu qoraa purchase qofkan wuxuu lacag galay ayaa ku qori doontaa dhinacan kaleetana waxaa ku qoraysaa sales wixii dakhli oo ninkan soo galay inta 3,000 waa intana 5,000 labadooda kala jar 5,000 oo laga jaro 3,000 2,000 2,000 dhinaca ku qore dhinaca yar ayaa ku buuxina haddii dhinacan yaraa leh dhinacana ku buuxina xisaabta iska jiraya okay inta 2,000 waa 2,000 waxaa ku qore gross profit waa faa'iido la soo saaray laakiin waxaan raacinay CD carry down waa maxay la soo saaray faa'iido duubka sanadkan la soo saaray waa 2,000 labadan isku dar inta 5,000 5,000 meel ku aadan horta 5,000 kale ku aaday kadib haddana isla gross profit kii soo rar dhinacaas keen BD ga raacina BD da maxaa la soo gaabanaanay brought down la soo raray faa'iido duubkii ayaa waxaa loo soo raray dhinacan ayaa loo soo raray ayaa loola jeedaa maxaan xisaabtaada bartaas ku dhamaatay xisaabtaada meeshaas ku dhamaatay kadibna faa'iido duubkii ganacsiga sidaas ayaan ku sameynay okay hadda meesha waxaan ku xisaabinay gross profit maxaa loo yaqaanaa haddana waxaan xisaabin doonaa gross loss ayaan xisaabin doonaa alxamdulillah sallallahu alayhi wasallam haatana waxaan galaynaa example-keena labaad ama tusaaleheena labaad waxaan uga hadli doonaa ama aan ku xisaabin doonaa gross loss khasaare duuduub hadda waxaan soo xisaabinay gross profit sidaas oo kale waxaan soo diyaarinay oon soo sameynay trading account sida loo sameeyo trading account oo si koobana hadda marka tusaaleena the trading period xilli xisaabeedkii ended dhamaaday 31 December 2005 colaad business ganacsiga colaad soldi wuxuu iska iibiyey soldi ereyada hadda ay ku sheega calaamadeyso wuxuu iska iibiyey ereyga soldi daama qashmacneed waa maxay sales ereygaas uu taagan yahay goodies badeeco worth qiimaheedu yahay 2,000 badeeco uu qiimaheedu $2,000 yahay ayuu iska iibiyey ninkan okay he had bought wuxuu ku soo iibsaday ereygaas noosta ka xariiqasigan wuxuu ku soo iibsaday badeecadan these goods badeecadaas for 3,000 $3,000 ayuu ku soo iibsaday asna meequu ku soo iibiyey 2,000 meequu ku soo iibsaday 3,000 uu ku soo iibsaday qarashka ugu fadhiisa meeqa waay bood waa qarashkii waa meeqa ugu fadhiisa 3,000 asna meequu ku isaga soo iibiyey 2,000 intaas xasuuno mar no goods wax badeeca ah has remained oo haray ma jiro wax badeeca haray ma jiro baqaarkiisa markuu xisaab xirka sameeyay wax badeeca oo ku haray ma aysan jirin therefore calculate waxa xisaabisaa gross loss xisaabi aan prepare sidaas oo kale waxa diyaarisaa trading account na diyaari intaas markaan joogno waxaan sameynaynaa solution solution markaad tiraahdo it means given ka waa inaad la soo baxdaa maxaa horta haysataa maxaas lagu diray kala ogow waxaa haysataa oo lagu siiyey sold waa maxay sales waa haysataa saleskaaga meeqa waaye $2,000 haye sidaas oo kale maxaa haysataa purchase ama costigi qarashkaaga haystid waa imisa $3,000 ayuu kugu fadhisaa badeecadaas okay maxaa lagu diray marka gross loss ayaa lagu diray gross loss ayaa lagu diray haye gross loss maxaa lagu laba qaab oo raadinayna marka sidii tiyaada oo kale qaabka koowaad waa maxay qaabkooda waxa waa inaan qaacid ahaan u raadino qaacidadu waa maxay noqonaysaa marka sidii kii hadaaya camal lawa gross profit wuxuu ku la mid yahay waxa isbedelaa base calaamadda la isbedelayso gross profit wuxuu ku la mid yahay saleskaaga oo laga jaray purchase-ka haye saleskaaga waa imisa waa 2,000 oo laga jaray purchase-kaaga oo ah 3,000 haye labadooda kala jar waa 1,000 laakiin 1,000kaas maxaa waaye 1,000kaas waa 1,000 minus wuxuu ku noqonayaa marka gross loss ayuu ku noqonaya bracketkaas ku jiro wuxuu ku cadeynayaa in uu minus yahay bracketka ku jiro sooma bracketkan geesaha ku jiro wuxuu ku cadeynayaa inay khasaare ay tahay ayuu ku cadeynayaa gross loss oo 1,000 ayuu ku jiraa ganacsigaas muxuu ku jiraa gross loss ama khasaaro oo 1,000 adiga
bracketkan ama qoyskaas uu ku jiro waxay ku cadeynaysaa inuu khasaare yahay inuu minus ayay ku cadeynaysaa gross profit iyo gross loss hal qaacido maxaa waa sales oo laga jiro purchase-kaaga haddii uu sales-kaagu bato waxay ku noqonaysaa profit haddii sales-kaagu yaraado maxay ku noqonay loss ayay ku noqonay gross loss oo ah $1,000 ayuu khasaaro ku jiraa okay aan diyaarino marka trading account ahaan aan u diyaarino trading account ahaan aan usii diyaarino trading account kooda maxaa sameynayna marka ganacsigaa iska lahaa colaad business ko title-kaaga diyaarso labo maxaa diyaarinaynaa trading account saddex maxaa taariikhda qoro 31 December 2005 ganacsiga colaad haye calaamadii sameyso inta maxaa ku qorane debit ku qoro ama DR labadaba mid aad ku soo gaabsay hadaa kan kali ku soo gaabsato kuma qasbanid kana credit CR ku soo gaabso haye inta maxaa ku qore sidii kii haday camal purchase oo ah lacagtan anaga wax ku soo iibsanay oo colaad wax ku soo iibsaday haye inta maxaa ku qore sales oo lacagtu wax isaga sii iibiyay haye purchase-kiis waa imisa inta ka fiirso purchase-kiis waa imisa 3,000 ayuu ugu fadhiyaa 3,000 haye sales-kiisana waa imisa 2,000 ayuu ugu fadhiyaa okay haye waxa hoosaas ka tiro okay haye labadooda kala jira marka purchase-kaaga iyo sales oo laga jaro purchase haye meeqa ku soo baxayso 1,000 ku soo baxa 1,000 maxaa la sameynaa marka hadba dhinacii yar ku buuxi 3,000 iyo 2,000 yaa yar 2,000 yar xaggaas ku buuxinay xaggaas ayaa ku buuxinay 1,000 inta ku buuxinay haye 1,000 oo magaciis marka 1,000 magaciis waa taqaana Soomaa waa gross loss magacay raacina waxaa raacina C/D oo ah carry down mar walba ina raacisaa macallimo iska jir mar walba ina raacisaa haye labadoodaas isku dar 3,000 ayay ku noqonay haddii khasaare la soo saaro carry khasaare hadba dhinac yar ayaa ku buuxinay kii ku soo baxaan oo magaciisa siinay haddii 3,000 2,000 yaa yar inta yar 1,000 inta ku buuxinay isku dar 3,000 3,000 inta horteeda soo raac marka horteeda soo raac meeshaan ku aadan 3,000 kale ku qor 3,000 kale ku qor laba markan hoosta ka xariiq kana laba mar hoosta ka xariiq kadib maxaa sameynaa sadarkaana soo sidiis wata gross loss sidiis soo qaad inta kan hoostiisaan ku qoray gross loss meeshii CD had maxaa ka dhigay B/D oo ah brought down inta loo soo raro waa intuu ku soo baxay inta loo soo raro oo ah $1,000 oo ah laakiin bracket ku jirto hoostaas ka laba xariiq that's it sidaas ku diyaarna sababta maxaa sameynaa ko title-kaaga diyaarso title-ka colaad business trade account taariikhda debit credit loo kala sameey debit-ka waxa loo qoraa purchase-ka credit-kana waxa loo qoraa sales-ka labadooda kala jeer hadba dhinac yar ayaa ku buuxinaa dhinac yar dhinac ku buuxinaa dhinac badnaan dhinacna ku buuxinaa 1,000 intu ku buuxin 3,000 2,000 isku dar labada 3,000 waaye isku aadi 3,000 iyo 3,000 isku aadi laba mar hoosta ka kala xariiq marka hoosta ka kala xariiqdo gross loss inta uu soo raray mar walbana sidaas mar walbana gross profit iyo gross loss sidaas ayaa u diyaarinaysaa ay cashirkeena caawintaas ay ku soo koobayna waxaan rajaynayaa insha Allah isbuuca soo socdo iyo cashiro kulul oo kuwan ka sii xiiso badan ay waxa la ka rabaa dinkan qalinka iyo boog inuu saarnaado boog note-kiina qalinkiina inuu saarnaado ay salaam alaykum